السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، walaalayaal waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan meeshan wax yar laba video aan soo garab dhigaa jiraan. Labadaas video waxaan jeclaan lahay in si fiican loo fiirsado. Markaad fiirsatana walaal waxaan kaaga baryayaa inaad gudbiso. Micnaha waxay ka turjumaysaa maanta oo la maraa 2023 2022 xilli jaahili inaan dib ugu laabaan ku Soomaaliyeed. معناها مالمانا waxaa arkaya nin la yiraahdo Cali Kurdistani oo Ciraaqi inuu yahay umaleha. Maalmahan kalimaano dhowr sano ka hor arkay asoo qamiis wata garweyn leh dadka quraana ku akhriya dhaal hal aayad oo weli soo qaada jiray baanti afka dadka gacnaha ka geliyo qofka wajiga ka shumiyay hadda waaba kanaaba garkii u xirtay sarwaal dheer oo qaatay maasha Allah taala iska arag waa bedeli. Okay, macnaha marka ninkan ma waay aad u fahmi laadiin macnaha ninkan waxa uu maxay intii ka soo jeedaan ma intuu ka keenay. Okay, labada video marka waxay ka turjumayaan ninkan la leeyahay Cali Kurdistani. Okay, assalaamu calaykum ku dhahay islaam waa. Okay, aayad quraan oo akhri islaam waa meeqa caraba quraanka akhri taqaan. Okay, intaas markaa ka soo gudubno ninkan hawsha uu wado waxaa weli jiray oo weligeedna aan ku arki jiray ugu yaraan 15 sano sidaan qorbaa u tagay nimanka la yiraahdo kaniisadaha qolada joogto bastard kala dhaho kulli hadda calaayad xaal war iyo tiradiis. Labada video waxaa soo gardhibay ninkan kaniisada jooga magaciisa waxaa la yiraahdaa Alfo Lukao, waa basta weyn oo la yaqaano kaniisada wuxuu leeyahay Hallelujah Church. Okay, ninkan waxyaabo badan oo sameeya kaligiis ma ahan, waa qolayooyin badan oo sameeya waa badan yihiin. mid kale Malawiyaana jiri kan inuu Koongilisiyaan jeclaan kuwa South Afrikaana jiraan kuwa Nigeriana jiraan qofka dhintay in nolol ku soo celi karaan xataa heer ay gaarin beentaas. macnaha waxaa la rabaa marka sidee ku aaminaysaa adiga inaad intaad u tagto Cali Kurdistani oo nunazilo min alqur'aan ma huwa shifaa madax ka taabto oo wajiga ka shushubiyo asocoto dharka ka taabto. macnaha suuragal ma marka xaafadaada ku laabatana sidaadii hore naqatay. marka Soomaaliyeed horta inay Ilaahay loo toobad keenaan rabaa. quraanka waa la yaqaanaa, ehelkaada joogo adiga quraan taqaanid, waalidkaa yaqaan, walaalkaa yaqaan, waa quraanka loo saar lahayd 114 ku buuxi maxaa loo saar lahayd. quraanku waa daawo waa run, laakiinse Cali Kurdistani hal aayad akhriyo waa soo caafimaaday. والله taas sheeko kale waa kulay aniga waa iga badan tahay. marka kulay labadan video indhaha idin macalima laba oday waaye soo arki kartaan. marka setup ka lagu sameeyo ee Soomaalida loo sameeyo qof ay setup sameystaan si dadku aaminaan. macnaha hadda marka ay taladu si dhigeysto kana marka uu ku guuleystay missionkiisa Hallelujah oo dhaha macnaha ilaahooda ugu yeeraan kana wuxuu leeyahay laa ilaaha illa muhammad sallallahu akbar allahu akbar. Okay, what's the difference marka waxa farqiga u dhaxeeya tahay kulli waxa waa ani kaabso oo dhagaxana waa arkay dad la siiyay. marka salaam